Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii gabadhii yarayd iyo waraabaha. Sidan ayayna ku bilaabanaysaa. Waa hore ayaa waxaa jiri jiray gabar yar oo aad u naxariis badnayd. Gabadhan yar ayaa waxay la nooleed aabbaheeda iyo hooyadeed oo ku noolaa mudul yar oo xaafadda ku yaalay. Geeska kale ee xaafadda ayaa sidoo kale waxaa ku noolaa ayeeyadeeda oo hooyadeeda dhashay. Gabadhan yar qof walbo ayaa jeclaa, gaar ahaan ayeeyadeeda ayaa aad u jeclayd, waxayna soo siin jirtay hadiyad mar walbo ay salaan ugu tagto. Maalin maalmaha ka mid ah oo waqti subax la joogo ayaa gabadhii yarayd waxaa la hadashay hooyadeeda, waxayna ku tiri, jalbaabkaaga soo gasho ee soo fiiri ayeeyadaada, maalmahan way xanuunsanayd, dambiishan ugu shub ukun, cambe, moos iyo digir. Hooyadeeda ayaa waxay u sii raacisay inaysan waddada ku ciyaarin oo toos u aado guriga ayeeyadeeda. Maalintaas ayaa waxay ahayd maalin ay qoraxda aad u kulushahay. Gabadhii yareedna aad ay u faraxsanayd maadaama ay ku ciyaari jirtay geedaha marka loo socdo guriga ayeeyadeeda. Gabadhii yareed ayaa is ilowday si u ciyaaraysay. Geed gab ah oo ku yaalay xitaa way ruxday si gebka ugu soo daato. Geed kale oo babaay ah ayay meesha ku aragtay, waxayna damacday inay 2 xabo oo babaay ah ayeeyadeeda ugu soo gooyso. Laakiin waxay maqashay cod xabeebsan oo gadaasheeda ka soo yeeray. Markii ay gadaal u soo jeesatay ayaa waxay aragtay dhurwaa meesha taagnaa oo u ekaa qof fiican. Dhurwaagii ayaa ku yidhi, see lagu bariyey maanta gabar yahay. Gabadhii yareed ayaa dhoola caddaysay maadaama aysan ogeyn sharta uu leeyahay dhurwaagan ama waraabahan. Wuxuuna waraabihii u sii raaciyey, maxaa kuugu jira dambiishan culus ee aad sidato? Waxay ku tiri, waxaa ku jira ukun, cambe, moos iyo digir. Xaaji waraabow, intee u socotaa waqtigan hore ee subaxda ah? Waraabihii ayaa ku yidhi, waxaan u socdaa ayeeyaday oo xanuunsan. Xaaji waraabow ayay ugu jawaabtay, intee degan tahay ayeeyadaada gabar yahay? Markaas ayay u tilmaantay guriga ayeeyadeeda. Waddadan ayaa la sii raacaa, kadib geedka weyn ee raqayda ah markaad tagto midig ayaa loo leexdaa, kadibna cariishka ugu horeeya ee ka hor imaanaya ay ayeeyadeeda degan tahay ayay ku tiri. Kadib waraabihii haye ayuu ku yidhi, maalin wanaagsan gabar yahay, wuuna ka orday. Gabadhii yarayd geedka babaayga ayay ku laabatay si ay babaayga u soo gooyso, sidoo kalena cayaar ayay meesha ku gashay. Waraabihii ayaa toos wuxuu u abbaaray gurigii ayeeyada. Albaabka ayuuna bilaabay inuu iska furo. Ayeeyadii oo maqashay jugjugtii ayaa ku qaylisay, yaa waaye albaabka waxa soo furaaya? Waraabihii ayaa ugu jawaabay, waa aniga gabadhaada oo ku soo salaantay. Ayeeyadii ayaa markaas ku tiri, qufulka ma xirna, kor u qaad ee soo gal. Markuu gudaha u soo galay ayeeyadii aad ay u qaylisay isku naxday, laakiin waraabihii ayaa googoosi oo cunay. Muddo kadib ayaa gabadhii yarayd soo gaartay gurigii ayeeyadeeda. Albaabka ayayna iska soo furtay ayadoo la hadlaysa ayeeyadeeda. Ayeeyo, see tahay? Inaad xanuunsatay ayaan maqlay. Dambiishan ayaan kuu keenay. Hooyo ayaa waxay ii soo dhiibtay ukun, cambe, moos iyo digir. 2 xabo oo babaay ahna geed oo babaay ayaan hoosta ka soo maray. Hor ayaan kugu soo gooyey. Ee fiiri. Markii uu soo dhowaatay sariirta ayeeyadeed ayaa shaki galay. Waxayna ku tiri, ayeeyo, bismillaah, dhagahaaga aad ay u waaweyn yihiin. Haa gabadhay, hadalkaaga ayaan si fiican ugu maqlaa dhagahan. Ayeeyo, indhahaagana weynaan badanaa, bismillaah. Haa ayeeyo, si fiican ayaan kuugu arkaa indhahan. Laakiin ayeeyo, sankaagana weynaanta ayuu ka batay. Haa ayeeyo, si fiican ayaan wax ugu urin karaa sankan. Laakiin ayeeyo, afkaagana weynaan badnaa. Adiga ayaan afkan kugu cunaya ayuu ku qayliyey, wuuna ku soo booday asagoo raba inuu cuno. Laakiin cariishka banaankiisa ayaa waxaa waqtigaas marayay nin beeraley ah oo watay faas ama miinsaar. Ninka beeraleyda ah oo maqlay oohinta gabadha yar ayaa cariishkii ku soo orday, wuxuuna madaxa ka gooyey dhurwaagii. Gabadhii yareedna sidaas ayay ku badbaaday. Caruurey, cashirka aan sheekadan ka baranayn ayaa waxay tahay in aadan aaminin qof aadan aqoon, sababtoo ah ma taqaanid qofkaas shisheeyaha ah waxa uu yahay. Dadka qaar oo xun ayaa laga yaabaa inay dhibaato kuu geystaan haddaad iska aamintid. Sidoo kale waxaan ku baranaynaa in arrimahaaga khaaska ah aadan dadka la wadaagin si aysan dhagar kuugu geysanin oo dhibaato kuu geysanin.
sidoo kale caruuray waxaan ku baranaynaa in talada waalidka aad raacdid sababtoo ah gabadhan yar hooyadeed ayaa waxay ku tiri ha ku ciyaarin wadada ee toos u aad guriga ayeeyadaada laakiin way iska dhaga tirtay marka waa muhiim markii waalidka uu kula taliyo inaad taladaas yeesho sidoo kale waxaan ku baranaynaa in dadka qaar ay iska dhigaan dad fiican oo xitaa mararka qaar ay ku caabiyaan sida dhurwaaga uu gabadha u salaamay uu iska dhigay qof fiican marka dadka qaar oo xun ayaa iska dhigi kara dad fiican inay yihiin oo dhibaato ku gaarsiin kara sidoo kale caruuray waxaan ku baranaynaa muhiimadda ay leedahay in dadka waayeelka ah laga warhaayo oo la caawiyo sababtoo ah gabadhan wax fiican ayay samaysay oo waxay u soo lugaysay ayna u soo qaaday dambiil culus guriga ayeeyadeed marka qofka weyn ee ayeeyo ama eedo ama habaryar oo qof weyn ah oo waayeel ah waa muhiim in loo naxariisto sida ay amartay diinta islaamka caruuray sheekadan halkan ay noogu eg tahay ilaa sheekada dambe aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh